barnaamijkan oo ay bahda isboortiga ku soo bandhigayeen baahiyaha hortaagan horumarinta ciyaaraha kala duwan ee dalka ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre si uu u dhageysto talooyinka sare loogu qaadayo isboortiga Soomaaliya. wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ayaa soo qaban qaabisay barnaamijkan oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro ah iyo bahda isboortiga mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya golayaasheeda kala duwan iyo maamulka gobolka Banaadir. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii uu gaaray garoonka kubadda kolayga aadan xaaji yabaro wiish ayaa dadweynihii ka qayb galayay barnaamijkaasi mid kasta ugu taga meeshiisa isagoo marxabeynayay. bahda ciyaaraha dalka ayaa caqabadihii ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa in ciyaartooyda matalaya qaranka Soomaaliya ay ku adag tahay inay helaan baasaboorka shaqaalaha ama serviska iyo soo dhaweyn la'aan ay kala kulmaan qaar ka mid ah safaaradaha Soomaaliya u jooga dalalka martigelinaya tartamada ay ka qayb galayaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhageystay caqabadahaasi ayaa ku amray safaaradaha kala duwan ee Soomaaliya in ciyaartooyda ay u soo dhaweeyaan si la mid ah madaxda qaranka isla markaana loo fudayn doono helista baasaboorka shaqaalaha. ka shaqayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in dalka madaxdiisu ay idin siiyaan ixtiraamka aad xaq u leedihiin. waxaan ka shaqayn doonaa haddii aad baasaboor u baahantihiin in la idin fududeeyo. haddii dalka dibadda aad u aadaan idinkoo dalkeenna sharaftiisa matalayana inay safaarad walba idin soo dhaweyso sida madaxweynaha loo soo dhaweeyo. sababta marka aad naftiina soo qadimtaan oo aad u soo baxdaan inaad tagtaan waddan shisheeye idinkoon waxba haysan si aad u qaadaan calanka Soomaaliyeed. safiir walba oo dalka dibaddiisa jooga wuxuu ku amran yahay inuu idin istaago aeroboortka oo idin soo dhaweeyo. safaaradii idin soo dhaweyn weysana waxaan u baahanahay in loo soo sheego. wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa cadaysay in ra'iisul wasaare Khayre ay ka go'an tahay horumarinta ciyaaraha dalka ayna wasaaraddu ku shaqayso hadafyadiisa ku aadan sare u qaadida isboortiga Soomaaliya. dhulka wasaaradda leedahay ee halkan ku dhagan ee inta ka xiga waxaan ku howlgali doonaa waqti dhow inta aan sanadku naga dhamaanin oo dabaashi iyo qaybihii kala duwanaa iyo xafiisyadina inaan ayaguna samayno haddii Allah awoodda leh ogolaado. horumarinta isboortiga ayaa waxaa lafdhabar u ah helista garoomo iyo xarumo u gaar ah. xilligan la joogana bahda isboortiga ayaa soo bandhigay inay laga maarmaan tahay in dhismo iyo dib u dayactir lagu sameeyo garoomada kala duwan ee dalka oo xilli ahaa garoomada ugu casrisan Afrika. ra'iisul wasaare Khayre ayaa tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya ay ka shaqayn doonto dhismaha garoomooyin uu ka mid yahay Stadium Muqdisho. horumarka isboortiga ay ahmiyad weyn u leedahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya taa oo ka qayb qaadanaysa isdhexgalka bulshada iyo nabadgelyada. sidoo kale waxaan rabaa inaad ogaataan meesha keliya oo aan sharaf ku leenahay waa dalkeenna. waa in jidadku dhisan yihiin, waa in iskuulladu dhisan yihiin, waa in isbitaalladu dhisan yihiin, waa in garoomada kubadda cagta iyo kubadda kolayga iyo kuwa kala duwan ay dhisan yihiin. garoonka ugu weyn oo dalkani uu lahaa waa garoonka la yidhaahdo Stadium Muqdisho. waxaan wasiiradda rabaa inaan hortiinna ugu sheego in sida ugu dhaqsaha badan garoonkaasna gacantiinna loo soo geliyo. waxaan ka codsannay ciidamada ku jira in laga saaro. waxaa kaloona codsannay in la dhiso. markii la dhisana wasaaradda gacanteeda lagu soo celiyo. wasiiradda iyo wasaaradda marka waxaan rabnaa inay ka soo shaqeeyaan goobaha idinka maqan iyo waxaad u baahantihiin in laydinku caawiyo si dib laydinkugu dhiso. golaha wasiiraduna waxay idinkala shaqayn doonaan in wax walba oo macquula oo dib loogu soo celinayo si aad fursad ugu heshaan inaad gudataan qaybaha kala duwan oo isboortiga inaan idinkala shaqayno. barnaamijkan bahda isboortiga ku soo bandhigayeen baahiyaha kala duwan ee hortaagan horumarka isboorti ee dalkeena ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga
oo xukuumadda ugu xil saaran ciyaaraha iyo dhalinyarada si loo helo dhalinyaro jir ahaan iyo maskax ahaanba u diyaarsan kana fog qabyaaladda iyo fikrada argagixisada. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.